halganka haddii la galo asalka marka halgan laga hadlayo cilmiya laba shay baa muhiima dadka halganka haya siday fikradda uga midoobi lahaayeen iyo objectkay doonayaan inay qabtaan inay dhameeyaan labadaas un baa sharidaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سو دوادا ميل كستو أد كسو جنتهين يحل كسرنا داونسان ومركل يا برنامج كلن كجرفينتا يو برنامج كتحناها قرنشوق إلى قربشوق يوايه النورلد عبد الله سليمان بده أبونا عبد الله سليمان بده أن وحينو تاجنيد وينو كتشرني حرقي وصح حرقي حبسية وصومر عبد الله ويقول لك وقول يرى uguna cuslaa xabsigii 20 jiro iyadoo la soo daayay magaalada Muqdisho lagu yiri kama bixi kartid oo xabsi magaalo lagu xukumay xabsi guri ma qashin xabsi magaalo marka halkaas aynu ka bilaabaynaa marka Cabdilaahi baan soo dhaweynayaa aad iyo aad ayaan u dhaweeyay Cabdi Shakuur waxay noo marisay iyadoo xabsi magaalo la ku xukumay magaalada Muqdisho kama bixi kartaa مدايا هلكا كجوغني horta waa 3 statekii lagu jirtaan wali ha 3 statek markaa dhamaadmay 4 statek kaanu galay 4 statekii markaa wali 4 statekii markaa dadana waxa weeyaan ragii qaar baa meel baa loo diray Ali Xasan oo kale waxa loo soo bedelay Jawhar waxayna la bedelay ragii la shaqeyn jiray waqooyi oo dhan xaqana la keenay Axmed Kalaas oo kale waxa barsaab looga dhigay gobolkaas shabeellada dhexe وحين لا شقين شري أنا لحرينا ولا سو بدلي ولا سو توري كويك كلنا قاربة مال بالله مقعابي مركاني وحلا مقعابي وسارد الحيسكا internal audit وaudit جوده وسارد دنك ما ضحك النقطي إنير مركي أنشوجه هذانا وحيمي وسير هذا شغال فريها وسير هذا شغال سهري دبتنا كوي مركي ما دام بالكيس وقبتها دبتنا وحلا مقعابي تلح وأنا قاسي مكان نقطي si hawshaan wax uga qabsiirada shaqada sidee Afrika ayaa ku shir ku qabanaya ayaa shir lagu qabanaya dadana cid hawshii maamusho taqaan ayaa loo baahday dadana sababtaas talax lay geeyay Maxamed Sayid baa ku magacaabay hotel talax isaga soo magacaabay wasaaradda barboos garanaysa waayo markaa waxa joogi jiray hoteelada oo la dabadeed la iimay niman xisbiyadii laga keenay oo hawlwadeen ah oo shaqadan aadba u aqoonin dabeetana ama waa lagu xisbiga kacanka dabeet oo iyaga laftooda la jahaynay dabeetana halkaasaan muddo joogay markii aan taa dhameeyeen muddo hayay ayaan haddana waxa ma walahay danogii wasiiradii beeraha ee Afrika ku shiray oo bilaa raflaa wasiirka beeraha markaa ahaa isna taana waan ka shaqeynay halka markaan joogo ayaan fasax qaatay haddana dabeetana markaa waxaan damcay bal dalka inaan ka baxaa ma ka baxay inaad baxdaba halkan ma jirto dalka inaan ka baxo dadana waxaan qaatay fasax waxaan tagay dabadaan u baxay ka qorshaha goordana wuxuu ku jiray inaan dib u soo noqon intaanad fasaxa qaadan intii aad shaqeynaysay sanad miyay ahayd mise waxay ahayd waxa ahayd 84 to 85 85 horantii soo waxaan falaya miyaa marna laga shakiyay wixii lagu xiray in marka waxaan saaxiib ahayn ba نوعات بدن وذا شو بتشري الله ونحرسته محمد حاج بران عقال وداها عدة كلية اللي بتشرو كسب هذا تعيديه وهلياله أيه صاحبه ويا شيء شالكي كيماد مركا عقال مركا محوهي عقال مركا وحوهي ومركا روت جناحسي الله ما قاعد بتشري والله بدأ تلاح بنشوف جالس نروت جناحسي بتشوفه وهل كانوا نسوق دوين سو ما أذكر مركا هوشي مية فرحة كقاضي SNM ولي واسديدي مسي way ku daboolan ولي واسديدي oo yani farqaad kama hayadeen ma garanaysaa ma xiriirku doow ku jira waayo waxa jira inta hore Hargeysa club joogan maalmaha khatar aadan tarbigaas oo iyo jooga maalintii soo galay ugu dareed Allah uu naxariistay madaxdiin baa uu ku ogaa halkee ay xafiiska igu yimi inta naxdunun imanka markaa dib u xisaabiyo waalideeda lahayd khatarteeda madaxdiinna markaa wuxuu ka mid ahaa SNM baa ka mid ahaa ninka SNM ka ogada xafiiska ugu soo galay ka soo war markaa Hargeysa way uga dhaweediyadu moogtay xagga saameynta xamar lafteeda ayaa waxaan xasuustaa maalin aan soo galay xafiis
kalex markaan joogay ahayd marka hadda inaan iska degay baan ahay 20 jir ka soo baxay markaas waxaan galay xafiisyada ka mid ah marka waxaa jira qolo ka timi soo intay sanamtii ka timi halkan imo laba shaqaaleeyay xafiiska dhabarjinta oo lacag ku lahayn buu ayaan doontay deesana qofkii baa igala kulmay meesha iska waran cali salamaan oo wanaagsanaa markaas la igu dhiftay wanahay shaki noqday marka cid kale idinma maqlayso ma joogto meesha marka ma joogto laakiin soo xalay ninkan hadduu warbixin bixiyo dawlad cid la shaqeynaya waa ciidankii dhabarjinta uga halisnaa all information aan leeyahay oo xagga laga sheekeeyana uu hayaa de waxa dambi ahaan jirtay dambi kale ba ma ahay wuxuu la walaalyahay nin aslamta ayba simbal kugu filan laakiin se mid kale oo saaxiibo ku lahaa inay wax kala dhaaf kala daragii ku soo maro dhammo ka sheekeynayeen hebel baan soo maray halkaasaan soo hoyday wax warkaaga waa la hayaa laakiin se wuxuu noqday nin aad u wanaagsan muusoo hadal qaaday marka naxdintu meel kastoo joogta kaama yaraan kaabi haray dabeetana waxay noqotay inaan dabadda u baxo marka fasaxi baad qaadatay fasaxi baan qaatay baasaboor baan madaxtooyada ka doontay intaa rag baa ku caawinaya waxaan tegey markaa carabta yaa lagu weydiiyey markaa sababta fasax u qaadanayso si caadi baan u qaatay si caadi ah baan u qaatay gabadha ay doonaydo waxaan ku guurkaygii waxay go'aan u tegaya dabeetana waxaan maqnaa dowladda lama sano ku dhow jidaan tegey cabdiraxmaan iyo ina buubaagan iyo guri ay u lahaayeen ku jireen xasan ciisahan iyo ayaabaan la degay 7 bilood baan la joogay qadar kuwait dhulkaas oo dhan soo maray waa 85 markaa dabeetana waan soo noqday dabeetana markaa waxay noqotay laba mid xuseen dheera ka soo diray meesha casayr baa ka soo baxay muuse biixigana madaxweynaha inoo afka ka soo baxay inta aan joogay xagga dabeeto inaan xagga tago iyo inaan Canada tago labada proposal baa lagu keenay isna waxaan ku dhawaanay ka tagi maayadoo gabadhayda joogta wadankii ma ku noqonayaa waan tagayaa runtiina way igu dhiirigeliyeen nimankii markaa allah u naxariista cabdiraxmaan iyo tag bay dhahan wadankii wax kasta cid baynu u baahnayd gudihii joogta hadan yaan ku cabdiraxmaan axmed cali allah u naxariista markaa gurigiina buubaagan leeyahay oo jidda ahaa baynu joognay xasan ciisaba in la yiraahdo waxa sukaa keenay faysal xasan nuur ula deganaa allah u naxariista uu shahiiday ninkaasna uu dhintay mujaahid buu ahaa dabeetana waan soo baxay wadankan ku soo noqday waana qalgalay waan guursaday muqdisho ka soo degtay hargeysa muqdisho ka soo degay hargeysa kama soo degay marka waxaan ka muqdisho ka degay muqdisho guursaday marka goorma soo noqotay waa 87 marka soo noqotay ها اوكي لaba sanaad maqnay laba sanaad la maqnay toddobiistii waa soo noqday soo noqday dadna waan qalgalay markaan bil aqalha ayaa waxa ii yeeday markaan gaariba Axmed Salaam soo diray baadbaadkii ku jira gaari aan leeyahay dekada ku jiray dekada Muqdisho way berbera marka waxa loo karaa noo soo transfer garay oo mushkilad ma laha waxa ii yeeday Cismaan Jaamaciyo مثلا dalkii baa la tagayaa maxamed siyaad baa la tagayaa dadkii baa loo lahaa fariin qaad dadku inay sii diyaar garoobaan ay kiciyaan dhamaalkaa geey information waxaad ku tusinaysaa taasu ilaa madaxda sare inay involved ahayd bahasha dabeetana waan soo baxay hargeysaan imi raggaan la kulmay ee dabka hulcanaya rag badan ba haddii la yidhaaho hebel halgankaas u galay manaa dadku aanan rumaysanba karinay markaan la fadhiistay allah u naxariista cali asad baa ka mid ahaa ismaaciil aadan baa ka mid ahaa dabeetana wax informationkan sidai iyagaan u gudbiyey iyaguna dalanta kale ee dalka ayay u gudbiyeen maxamed siyaad wuu yimi waqti la isku kacay marka anagu marka adigu information-kana la timi aad soo qaaday ma information maxamed siyaal negative ku aabo waxay ahayd dadku had diyaar garoobeen haddii ninkaas wax u qalmo uu siin waayo mowqifkooda ha muujiyeen adigu markaan soo qaaday siyaad ka imanaysa Muqdisho ee xogta soo qaadaysa nimanka wada shirteen ma waxaad go'aan ku gaadheen maadaama ninkii madaxweyne loo ogaaday inuu waxa leeysi hala tagay waxa leeysi siiyeen dadku imu qoyga leeyahay aniga mamnuuc ka ahaa waftiganaad ka mid too sii hormar
ha in yar ka soo horreey kasii horeeya laakiin warkan aad sii Laakiin qaadaysaa sawirka- adigu lama oge qoladan kale ma oga qodob kale ma oge dabeetana dadku waa kasii diyaar garoobeen ayaa laygu yidhi dabeetna adigu fariintaan sidee dee gaadhsiiyey intii saaxiib baan lahaa ayaan gaadhsiin karayey maxamed saad waa ka yimi waa ti qaraxday annagu markaa waanu ka maqanay burcaanu jiraa aniga cabdikariim burcad u wadaarteen markii soo wadaarsiinayay Hargeysa. markaa maalinta wax dhacay anagu ma joogno burca anagu joogna habeenkiina loo sheegay inuu burca yimaadana waa la eegay dabeeto waan xasuustaayo waxay yimi markaas salamaan gaalba salamaan nuur Salman Maxamed Ali salamaan maxamed baa kasoo hormaray salamaan habeenkaa u joogay markii la yidhi ninkii waa la shiiday baga buu yidhi nina tii salaamo qariya dee baga buu yidhi Salman markaa wuxuu joogaa soo weyn burcu yimi burcu yimi oo isna hordhac buu yahay haye waftiga markaas ugu xil noocee buu hay markaa xilliga waa wasiirday haye ninkan la baga tadbiisteetankii waa wasiir laakiin sidii dadkan ku leeyahay waa anaga unugu kalsoon yahay kawad malaa waa buu ilaabay markaa daaraka waan xasin lahay dabeetana halkaasaan ku kala baxnay cabdikariim eedhoorna wakan joogmaaye buurihii ceergaabo ayaan gelayaa kaale raac dabeetana wax kule anigu buurahan abtiyaalada ayaan gelayaa haddaan qaar gelaye kuwaa tegi maygata dabeet waxaan malnay isagii maxamed baarjeex ayaa galabta iga baxay annaga xagganaa nimi isaguna ganacsadii ganacsada ahaa waxaan nimi markaa cabdiraxmaan badheere hoteelkooda cabdiraxmaan baan isla joogay dabeetana waxaan ihi gaadhiyadii ayaan la baxayaa oo burco markaa waa berbera oo cabdiraxmaan badheere berbere ku lahaan dee hoteelkii marsa dabeetana gaadhiyadii baan isku mashquuliyey markaa dee waa lagu daba socdaayo waad muuqanaysaa berbera gaadhigii markaan soo saaray labadii gaadhi ayaan warqad ka helay qoladayna gudaha ay leeyin waanu soo soconnaa barwaaqaanu joognay waanu ka baxnay booshashkii baanu tolanaynaa waanu idinla joognaa mar weegaan dabadeed gal hargeysa dabeetana gaadhidaan soo kaxaya hargeysaan soo gala marka qodada warka nimankii asnamtii aad iyo aad bilaamaara xuseen dheere ayaa ku saxeexnaa aaggaa cali salaamaan isna warqad bii soo diray labadoodas waan ka helay markaa xuseentiisu waxay ahayd dabeetana weli xilkii miyaad haysaa hotel taleex mise markan ma xilkii waa layga qaaday taleex waxaan ahay agaasime ku-xigeenka juba okay hotelka juba ayaa laygeeyay dabeetana waxaan imi markaa qoladii waftiga ahayd baa timi si waktiga la iigu dheereeyo gaboosahana warqad ka qorta wasiirka dalxiiska loo soo bedelay oo jooga dr gaboos dabeetana hargeysaan imi markaa istaraatiijigaas hargeysa aan warka doondoonay dabeetana waxaan helay markaa already inta hargeysa markaan galay burca la soo galo anuu hargeysa jooga habeenkaan waan qaban lahaa markaa ninka nala baxsaday wuxuu ahaa axmed dheere ninka la yidhaha axmed dheerihii marna maayarka burcaan noqon jiray marna maayarka inuu sugid ahaa korneel ahaa oo isna gudaha jooga oo ahaa raggaan noo aad isugu xidhnayn ayaa nikaxeeyey meel la qariyey ewasavidas dabeet qoladii burca soo gashay qoladii burca markuu soo gashay reer qoladi marka waxaa la eegayay ciidankan cadaa leh tagaa inay ka soo galaan airportka dabeet informationka laysiiyey kaasoo ahaa gaariyadii waxaan dhigay geerashkii jaamac good ee marka laga baxaayo xabaalaha ahaa ee airportka looga sii baxaayo nasiib darra may soo dhaceen qolada halkana soo dhacday magaaladii la isku soo gal qoladii baan anagu isaga tagnay markaa dabeeta qolada markaa markiiba waxa markaa nala joogay isna halkaa nin cornelo la oran jiray jaamac yare allah u naxariisto shahiiday oo ahaa markii dambe taliyihii qaybta saddexaad jaamac markiiba abaabul buu galay gaas nuur buu sameeyey markuu gaas nuur sameeyey ciidankaas u ahaa ciidankii ugu horreeyey ee sibalka ahaa ee hargeysa laga ururiyey wax ciidan la heliyo wax ee dagaal gala qoladii ciidanka ee galbeedkuna way soo galeen dabeeto waxaan noo yimi haddana qoladii markaa waxaan u tagnay markaa aan ugu horreysay u tagnay waxa la magacaabay guddi guddoomiye waxaan noo ahaa daahir faarax jire guddoomiye ku-xigeen baanu ahaa idaacaddii inaanu ku hadalaanu damcna wariyahaanu haysanaa waa maxamed cumar cabdalle allah u naxariistee iyo isagii daahiriya allah u naxariistee raggaa guddida nagula jira waxaa ka mid ahaa qasbaayahan cabdi qasbaayahana
raggaa nagula jiray maalintaa hore shirka nagula jiray buu ka mid ahaa jaamaca waa ninkii nagu xasuusiyey waa saadkuu joogi jiray waa ninkii yidhi cajaladda hala duubo hargeysa cajaladda laga duubo waxaanu ka soo qaadnay daanta yuusuf gabow waa markaa cajaladii duubay cabdigabow waa duubay cajaladii ugu horreysay hargeysa laga duubo fikirkana ninkaasaa lahaa bahashana qoladaasaa fulisay dabeetana marka dagaalkii wuu soo galay wuu dhacay markaa dee waa ka qabanin mudduu socday waana 1987kii 27kii May waxay ahayd Burco 31kii Mayna waxay ahayd Hargeysa hargeysa markaa nagu qabsaday idinku deedna oo reer magaalada waa idinku yimi adigu weli jabhadii uma bixin laakiin adigu waa lagu yimi dabeetana halkiiba haddana waxaa nagu soo baxay arrin kale oo cusub oo ah markaa group baan nahay ayaa la jooga oo rag badan oo ka mid ah injineer Cabdi Jaamac oo ka mid ahaa Cumar Ciise oo ka mid ahaa Jamaal Caydiid kanu group dhan oo ah dadkii magaalada dhalintii iyo intellectual iyo odayaalba ah ganacsato badan fara badnaa ka mid ahaa nin la oran jiray Cabdillahi Aadan ma filayn la oran jiray rag badan baa ka mid ahaa la sudaneeya ayaa dadka waxay noqotay inaanu baxno oo aagaga wada maro oo haddii khilaaf jiro aagaga saxno oo halkan markaa waa la isku filan yahay dabeetana haddana waxay noqotay inaan dhaawacii wax ka qaadno markaa dee siimiska kuugu daranay halkan kuugu soo maray dee lama koobi kara iyaga dee waqtigeeday leedahay dabeetana dhaawac baanu ka saaray Hargeysa waxaanu geynay dhaawacaa ugu horreeyaan wax ka kaxeeyey waxa dhaawacii ugu horreeyay ee dhoobo guduud la geeyo ayaa waday dabeetana halkaasaan ka soo noqonay haddana laanqeyrtaan isugu wada nimi laanqeyrta markaan isugu nimi waxay noqotay inaanu qodaydaas abaabulo inaanu aagaga wada maro dabeetana waxay noqotay inaanu fakro dhahno okay khilaafka jira yaynaan ku dhex milmin halkaasna dadba kelmad qaaliya ka oranaya marka yaa iskhilaafsanaa xilliga dee gudaha saraakiishan khilaaf baa u dhexeeyey asana gudaheeda khilaaf ku jiray markaa aanu tagnay waay intaanan haddaba u imanaynin marka noloshaada jabhadeynta bilaabmaysa moogtahay jabhadeed halkaasaan halkaasay ka bilaabmaysaa halkaas sidee ka bilaabmaysaa intaanan haddaba baabka u gudbin adigu horreer adoo bixin bay Hargeysa ku dul qabsatay deedna wadaga toos ugu dhex milmay ee ka mid noqday xitaa dawladda aan dib ugu noqonay dowreeray jabhadda joogta halganka haddii la galo asalka marka halgan laga hadlayo cilmiya laba shay baa muhiim ah dadka halganka haya siday fikradda uga midoobi lahaayeen iyo objectkay doonayaan inay qabtaan inay dhameeyaan labadaas un baa sharidaya waa A iyo E soo ma SNM waxaa lahayd A iyo B fikirka laga midooba had iyo jeer waxa weeye wuxuu ahaa kiis fikra islaamiya dimuqraadi iyo shuuciyad intaasuba SNM way dhex jirtay fikirkii waad ugu tegaysay hebel baa dee loo naqaanay sida loo kala aaminsanaa okay B bay lahayd marka had iyo jeer way adagtahay halganada sida saddexda fikrood ay u midoobaan si guul loo gaaro halganka way haddii labada qodob la jabin baa la gaaraa inagu B baynu lahayn reeraynu lahayn qodobka labaad wuxuu ahaa halgankii dalkii in la sameeyo adduunyada dee dalun baa la xoreeyaa SNM waxaa jiray dalkoodii ka weyn oo ay haysteen maxamed siyaad ciidamadiisii iyo jabhaddii la oran jiray Somali West Liberation dabeetana waxay noqotay taasina A iyo B inay yeelato dabeetana SNM markay saa u fakareen waa markaan dee si duuduuba cilmiyaysan kuugu soo koobo arrintii ideologiga ahayd oo arrintan iyadoo socotana la soo gashay TB-ga hay'adda reeraha ahayd meel bay iskaga xidheen because markaa ama way baahnayn oo way yaraayeen okay tii kale ahayd targetkoodii waxay xoreeyeen kii ka horreeyay B-ga oo aan adduunkaba ka dhicin dalkii leeg bay soo xoreeyeen oo reseferio dhan bay soo xoreeyeen formula jigjiga iyo ciidamada afweyn joogeen kii markay soo xoreeyeen bay dhahan maxay xal gaareen kumay noqonin number 1 kii inay xoreeyaan kii kale eega ahaa bay xoreeyeen oo Somaliland hayba soo galeen dibadda waa khilaafka ilaa maantadan jira A iyo B-gii ilaa maanta Somaliland halkan ka dhadhasataan maxaa la soo haystaa waa taa xagga oo taladaasna baa la soo gashay horta cilmiyan marka laga hadlayo sidaan anigu aragtideeda gaaban u haystaa waa sida dibadda khilaafkii waxa jiray waad ka arkaysaa fikirka islaamka waxaad ka arkaysaa fikirkii
shuuciyadda shuuciyadii waxaad ka arkaysa fikirkii reer reer galbeedka galbeedka dimuqraadiyadda saddexdaba way jireen deeta shuuciyadda waa tii jabtay iyadoo weli halgankii lagu jiro labadii kale way isla soo guryo galeen waxaa sii dheeraatay intaa magaalaa la jabsaday shacbigii markay yimaadeenna tii qabiilka ay biida ahayd ayayna cirka martay oo dagoosatay oo intii kale oo dhan saamaysay intii kale oo dhan saamaysay dabeet halganka horta sidaa ayuu ahaa markaa kabacdi aniga waxaa lay diray annagoo frontka joognaa jaamac cali cilmi ii yeedhay xeryaha qaxootiga in la dejiyo ayaa ku adkaatay snm abokor iyo daroor iyo ayaa markaa barigaa la dejinaya marka inamada dhalinyarta loo dhiibay waraada mas-uul bay noqon waayna kaaleya frontka hadday nin xabadda ka rida la waayi maaye xaggan taga buuni dabeetna waxaan imi kaama bokor inaanu dejino annagu meeshii dejinayna ayaa nin ka mid ahaa inamadii u sagaalisteetkii waa weli eidhkii weeyaan 88kii horeba bilowgii waa maadaama badalkiisa ahaa. 87 uu ka dhacay hargeysa waa dadkii 88 qaxayay ahaa. iyo dabeetana waxaa dhacday markaa xeryahaasaan jeexayay dabeetana nin dhakhtar ahaa oo la odhan jiray maxamuud cali canjeex oo ka mid ahaa inamada ufo eedho nima haddii dad la dejinayo waxaa habboon in dadka aqoonta lahaa ee mujtamacii ahaana wax la ururiyo si ay garsoorayaashii oo kale dhakhaatiirtii oo kale markaa reer dhakhaatiirtu way dhisan yihiin oo wixii dagaalkii soo galay kuwii xagga markiiba way tageen dabeetana riisankaasaa keenay inaanu markaa runtii nin baa aada isna bili-aadmiga waa inaad deeqirtaa ciddiisii nin baa investment badan geliyey nin professor ahaa oo loodhan jiray xuseen qaadiro oo macallin ahaan jiray oo sanamtii hore ahaa ayaa investment geliyey sidii loo dhis lahaa meel institutiona annaguna waxaanu ka caawinay sidii dee dadkii iyo wixii loo heli lahaa dabeetna institutionka maxaa garsoorayaashii baa la keenay waxaa la keenay dadkii disableka ahaa oo gaar looga saaray qaxootigii kale xeryaha ayaan u samaynay fanaaniintii baanu soo ururinay markaa dabeetna fanaaniintii waxaan ugu talagalnay laba weji inay yeeshaan mid inay dadkan qaxootiga iyo caalamkii dagaal weji kula galaan wejina ay snm hogaamiyaan laakiin si snm ay ka madax banaanaadaan nimanka abwaanadihiina markaa way qabeen markaa dee liiskoodii iyo barnaamij gaaray noqon doonaan fanaaniintii iyo hawlgalkii iyo wixii aanu samaynay ilaa idaacaddii baanu soo qabanay markii dambe dee fanaaniintiina kuu sheegi maayo dee iyadoo barnaamij malaa gaar ah ayuu ku habboon yahay markaa dagaalkii jabhaddiina sidaasaanu kusoo guryo gaadhnay markaa intaan marayna waxay ahayd aagaga ilaa dhoqoshay ilaa allay baday dhoqoshay ilaa allay baday front meelan istaagin garan maayo adigu maamulka marka laga imaado ma jabhadaysay oo qori ma qaadatay oo fronta ma gashay mise wuxuu malahayd maamulkaad ahayd adigu khasab bay tahay waaba ku waajibay deed kale military baaban anugu ahaa meelahaad ka dagaalantay halka kamid ah waanan ku waxa dee horta hargeysa marka hore gaasnuur laga dagaalamay ka dagaalamo saddexaad waan soo raacay intaaba waan ku jiray oo dee qoriga wad qaadanaysa markii idinkoo magaalada jooga dagaalkii ka dhacay waxaan jecelahay dadka inaan dib ugu yar celin xasuusino waa tii magaalada laga baxay barqaabkood uga baxdeen yaa ladin riixay mise laba horta macana ahayd riixsan dee hore intaa hore maan joogin laakiin markan dambe waxaa la tagay geed deebla dhaawacaa la dhigtay geed deebla markaa laba xarumood buu ahaa xarun dhaawac bay ahayd waxaa kale ahayd xerada tababarka maxamed cali weerar taliyaha iyagii berigii aan kaaga soo sheekeyn jirin haysan jiray ayaa wuxuu ka sameeyey xero tababar laba wiig buu inuu kaga bixi jiray askari ku noqon jiray front ku geli jiray traininka qoriga rasalaafta waxaa dhan baalkaa lagu baraa dhakhaatiirtana axmed dhakhtar ismaaciil iyo axmed cumar askariye baa joogay waxyaabaha markaa horta halkaas xarun bay sidaa ahay halkan kale magaalada gudaheeda lagu dagaalamayay waqtiga laga baxay waxaa ahayd august meelaha laakiinse intii hore august bay ahayd goortii laga baxayay ilaa sanadii waxba lagu jiray ayaa lagu jirahaa markaa waxaa la soo gaadhay halkan waxyaabahan u garanay frontskan ka dagaalamayna mar wax ka mid ahaa total agtiisa oo qoladii sancaaniya ay ku jirtay qurac dheer xaafadayda iyo ereyada halkaasaan daadsanayn markaa hargeysa inteeda badan dee waa laga gudbay marka haddii kor lagaga iman lahaa oo la qabsan lahaaba meeshan ay naga soo garaacayeen xagga sare unbay ahayd markaa looma maydeyn marka waxyaabaha dee xasuus goorma dib uga baxdeen waxay dee august markaa la baxay
marka anigu dhaawaca qaaday aanu qof ku harin ee dhaawacii la qaaday ayaa la bixin anigu maalinta maan joogin Hargeysa waxaan xasuustaa aniga Cali Salebaan Dhega Weyne Xuseen Dheere Dayib waxoo dhan waxaan jiray xagashe dabeetana hal talaaba la sidii dabeetana marka lama soconin Xuseen Cali Salebaan Dayib Guray Allahumma salli ala Muhammad Dhega Weyne ay sidii soo talaaba jidkaan laga jiro ay ka soo talaabi kari waayeen dabeetana qoladan markaas ay dib u guratay oo ciidamo la soo keenay marka waxa raga joogay markaas goob joog ahaa maalintaas fact wax wanaagsan Cabdi Maxamuud keenna kamid ahaa oo saadka hayay oo isaga laga wareysan karaa wixii sida u dhaceen details marka run ahaantii waqtigaas ahayd waqtigan dambe la saaray aad dagaalkii waad gasheen wad la dhameysatay dagaalkii SNM mise dagaalkii SNM markii Hargeysa 91 ka soo baxday 91kii aan ku sii fogaaday markan waxaan arkay waa sida soo socota in civil war dhacayo Hargeysa saadaalnaa kamid ah for that reason ku sigmay baan ku dhintaan shalay ku wada dagaalamayni inaan gudaha yagii dubisaga horaantii wad ka baxday horaan ka baxay adigu SNM marka laga yimaado sidii dadbanayd iyo dimganaysa horaantiiba si toos oo hubaysan waxaad ula jaan qaaday 1980kii oo markay soo galeen ilaa maalintaas intii la ayaan qorigooda qaatay intaas ku jirtay maxaad dib ku soo gaadhay wali xabadi ma kugu dhacday mise Ilaahay uu ka dibadeen ma dhaawacyo jiraan definin iyo way jiraan way soo gaareen laakiin Ilaahay wax kale oo dhibaato ah iga mugaartay laakiin sida wax badan oo psychological ku dhacaya jira waxyaabaha aan dhacdooyinkan Ilaahay wax kamid ah halka geed deblo kale waxaan xasuustaa waxa yeelay in loo jiray Cabdi Magar oo ku badoo ciyaar jiray kubadda aad wax xariifa Allah u naxariistay dabeetana iyo Axmed Cumar Askar markaasuu tag geerishka wadano mishaartii birta soo qaad marka waxa laga jabaa lugtana go'day laftii baa dheer in lafta lagaga jiraa la doonaya laftii kala dheeraatay marka dabeetana waxaan wada joognaa marka odaanool maanta aadan xaaji aadan baradho ay aniga inaan noo soo qaado ganacsadaha waxaan soo qaadnay inankii lugtii lagaga jir birtii teetan oo laakiin soo dhintay Allah yarxamah marka bal saaxiibka oo lugtu shalay kubadda ku xariifinayay horta marka waran la xaajay oo yaani halkan aan lahayn wax tarkiisa baa wax noqday ii doon bahasha saar laga jaray marka hadda waxyaabaha kugu dhacaya saaxiibka hebelowda joogto inuu ka socdo inta halkan xabada kaga dhacday finish noqday geerooyinka kugu xumay midba ka darantay waxaan xasuustaa nin baa kalimadii ugu yiri maalin sanamtii hore ah ku jiray oo jiray Cabdi Xasan ee guri bal maalin kasta eeg dagaal baynu galaa 30 baynu ku galaa 100 baynu ku galaynaa Soomaa waxa ka soo noqda 10 waxa kale ee saaxiibada ah ay wada dhintay waxba kugu sameyn mayso shucuurta miya marka ay dhaawaco jidhka uun maaha ee maskax ahaan ciidan wuxuu gaarin oo yarta markan adigu aad joogtay already dagaalku waa gudaha la isla soo galay dib baa loo noqonayay oo marka hawlgalkaagu wuxuu u badnaa maadaama nin reer Hargeysa aad ahayd oo burcana marka hawlgalkaagu dhinacyadee buu u badnaa yani ciidamada aad ugu xidhan maadaama talasiyadu ay Hargeysa horta intan laga kaxeeyay marka dambe qoladan taliska gudiga kaxeeyeen way isinaayeen laakiin marka hore ciidankan Hargeysa nahay oo taliskaas ka tirsanaysa waxa ugu muhiimsan dagaalka ninka dhaawacaaga qaadi kara dhaawacaagana waxa qaadi kara ninku garanayo ugu muhiimsan taas aad ka fikraysa waxa weeyaan marka ma tagi kartid haday ilmaadeerada wadihiin ku garanayno lama qaadayo kala baadkan marka day laga hadlayo hawshan ma ninba taariikhda intuu arko mise wax kale waxa laga yaabaa hadii lagu weydiiyo war awliya isku xigteen inaan xabad ka sheeg kareen waayo waqtigiina uu dheer yahay asalka warka shal looma hayo waqtiga kamana fakaraysid inaad noolaanaysaba way marka wax badan oo aan weelaan lahayn wax badan oo taariikh laga reebi lahaa waxaanad uba qaadanaynin waxaad is oranaysid gaari ma meesida ma imika kugu dhici mise tadamba kugu dhici way ama tii frontka kugu dhacaysa ama tii wiiftada ahayd baa kugu dhacaysa ama madfac baa kugu dhacaya marka hebel ma oran karto inta midun kala tagto xabada labadeena wada socda aniga ay ku dhacdaadna kugu dhacday soo moogid